بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta ku sugannahay mid ka mid ah mashaariicda shirkadda dhismaha iyo guryeynta ee Bruj ee ka hirgelisay gudaha magaalada Muqdisho. Dhismahan idin muuqda waa dhisme uu fikirkeeda uu lahaa macaamilka maanta arrimaha furaha ku wareejina guriga. hore wuxuu ahaa dream ama riyo la rabay inay maalin u suuroodo muuqaalka idin muuqday aadka u quruxda badan iyo dhismahan qiimaha uu ka kooban yahay intaba macnaha waxa taabagelinteeda iyo hirgelinteedaba lahaa shirkadda dhismaha Bruj. gurigan idin muuqda saddex dabaq uu ka kooban yahay ground floor, first floor iyo second floor. ground floor waxa uu ka kooban yahay fadhi aad u weyn oo masquushiisa dhinaca ku wata jikada weyneed ee guriga iyo Allahu musta'aan laba qol oo waliba mid uu yahay master iyo qolka ugu dambeeya qolka loogu talagalay gym ee jirbiska qaybta kale ku xigta waxa ku yaala sidoo kale afar qol oo mid uu yahay waliba master room iraada master room oo waliba main master room iyo sidoo kale mid kale oo isagana ah mini master room oo intaba wataan musqulahooda iyo sidoo kale laba qol oo kale oo loogu talagalay inay qaybaha kale family-ga ay degaan oo iyagana uu leeyahay mid walba masqushiisa wuxuu leeyahay guriga balkoon ku furan qaybta sare ee fadhiga dabaqa kale xiga ama dabaqa labaad ama kan ugu dambeeya waxa ku yaala fadhiga weynaa ee guriga sidoo kale waxa ku yaala sidoo kale qaybihii loogu talagalay in lagu nasto ama family-ga ee qaybaha nasiinahooda waqtigooda ku qaataan muuqaalka gurigan ee idin muuqda waa mid ka mid ah guryaha ugu casrisan ee sanadkan ku guda jirnaa laga hirgeliyay wadanka gudihiisa waxaan is dhihi karnaa macnaha technology gurigan lagu dhisay iyo muuqaalka gurigan uu muuqdaba waa mid amazing ah ama soo jiidasho leh waxaan ku faraxsanahay maanta macaamilkeena inaan ku wareejino maanta gurigiisa iyagoo aad ugu faraxsan waxaan u rajaynaynaa qaybaha family-ga ku kooban yahay iyo qaybaha kale family-ga Soomaaliyeedba in shirkadda dhismaha ee guryeynta ee Bruj mar walba ay diyaar u tahay inay uga rumayso waxa ay kula balanto macnaheedu ay tahay in la dhowro quality guriga lagu ballamay laba inuu sidoo kale ahaado guri ka tilmaaman guryaha waana labada aan leeyahay maanta gurigan wuxuu uga doon yahay guryo kale oo maanta wadanka gudihiisa laga hirgeliyay mustaqbalkana waxaan rajayn doonaa insha Allah inaan ka sii horumarino dhismaha qaybihiisa kala duwan oo aan la nimaano fikrada kuwan ka sii qurux badan ku soo dhawo mar kale mudane gurigaaga aadaan ugu faraxsanahay maanta gurigan kugu wareejino hambalya ku leenahay shirkadu waa shirkadaada maanta kaliya macaamiishana kumaaga mustaqbalkana waxaan rajayn doonaa inaan gurigaaga guriga ka qurux badan ba ama shirkada ay macnaha kugu soo dhaweyso ku soo dhawo mar kale shirkada dhismaha guryeynta Bruj aad ugu faraxsanahay maanta guriga kugu wareejino hambalya bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan horta shaqaalaha iyo dadka oo ah macnaha hormoodka shirkadda Bruj anoo ka faa'iideysanaya macnaha fursadan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maadaama runtii macnaha shaqo aan aad ugu faraxsanahay oo runtii anagoo dhan macnaha naxiise gelisay ay noo qabteen oo weliba ay ku qabteen muddo kooban ma aha maanta furaha keliyana lagu wareejiyey laakiin waxaan Bruj u sheegayaa maadaama standardka gurigan oo sareeyo oo macnaha dad macnaha expertise ay leeyihiin ay geliyeen macnaha waqti badan oo ay gurigan ku dhiseen Bruj ba company-geena waxaan mar labaad iyo saddexaad uga mahad celinayaa meesha maamulka Bruj iyo shaqaalaha oo runtii si macnaha ay ku jirto Soomaalinimo iyo walaalnimo iyo soo dhaweyn noola shaqeeyay waan ku faraxsanahay hore u socdaan lana Bruj waana mahadsantiin assalaamu calaykum.